reerkana ay hayaan waxaan ka codsanaynaa marka madaxweynaha dawladda federaalka madaxweynaha dawladda Jubbaland iyo gudoomiyaha baarlamaanka maxkamadda sare iyo dhammaan kursiga uu reerku lahaa oo si xaq darro ah 17 sano oo hadda loogu haysto dawladda federaalka qofka ku fadhiyana uu iska cad yahay lambarkiisana kumankeeda hadda la soo saarayo ama taqaanaa aad ka akhrin doontaan waxaana ka codsanaynaa dawladda Jubbaland madaxweynaha ka yahay Maxamed Axmed Islaam in beesha abaskuul ay ka maqan tahay saaxida ma taqaana Jubbaland oo aynu waxba aynu ku haynin adnoo haysid waxaanu ka codsanaynaa abaskuul saamigii ilahayd haddii wasiir noqoto haddii agaasin noqdo haddii agaasin ku xigaan noqdo haddii wax kastaba ay noqoto in waxba aynu abaskuul aynu ku haynin loona baahan yahay in cadaalad laga taliyo cadaaladana ma aha in ma taqaana qofkii mudnaa maanta iyo qofkii aan mudnaynba in mid kastaba saamigiisii gooni loo dasiyo waxaan rajaynayaa dadka abaskuul ee gartay in ay baadi ka maqan tahay ee hanuunkaas ilaahay qalbigooda ku riday in hore u sii socdaan kursiga sida aan maqalay anigu ma joogin laakiin sida aan maqalay dacwo ku maqan yahay laba nin oo nin uu anta wakiil ka ahaa Soomaalidana wakiil uu ka ahaa ninna hogaamiye kooxeedka uu wakiil ka ahaa yaa dhacay nin waa afay ninna waa in Cumar Jeesaan maqlay in Cumar Jees hogaamiye kooxeedka wakiishay oo wakiil uu ka ahaa ninkan uu antana wakiil ku ahaa shirkana wakiil buu ka ahaa afay labada nin baa soo kaashatay khaas ahaan afay baa dhacay oo walaalkiisa u dhacay Ahmed Xaanshe ninka la yiraahdo iyo u dhacay marka maadaama aan laga hadlin hadda ka hor oo sidii uu Shukri Saalax uu yiri abaskuul shir guud inta iskugu timaatay kama hadlan uu yiri waa runtiis maanta haddii ilaahay garansiiyay in maal iyo maskaxda abaskuul ay maartay u istaagto oo kursiga la doono yaan u baahannahay dibad iyo dal intaba sidii lagu dooni lahaana ma aha in afku laga hadlee ficil in la sameeyo la rabaa ficil in shir inta la qabto kursiga aan doonno la yiraaho ee inta la qadeeyo la soo imaado ma aha waxa la rabaa ficil in la sameeyo oo maal ay maskaxda la soo geeyo marka waxaan hadalkayga ku soo gaabinayaa sidaan u hanuunay ee aan iskugu imaanay aan xoojino naf iyo maal maskax iyo maal aan hurno dibad iyo dal kursiga aan doonno abukaati aan qabsanno bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Cali Said Umar waxaan hadda laga hadlayay baan ka hadlayaa waxa weeye haddii absame horta hadduu isdhaco absame isma dhici karo horta annaga booskanaga waagii carta reer ka dhacay annagu midkanaba hal boos buu lahaa iyaguna boos bay lahayn annaguna boos baan lahayn booskanaga Nairobi meel Nairobi ka shayso oo magac lahayd yaa lagu dhacay waxa in bagaati baa lagu dhacay waxaana dhacay Maxamed Afay iyo in Cumar Jees oo midna uu yahay qabqable midna uu UN u shaqeeyaa naga dhacay horta ugaaskii kolkii uu qayliyayna ul baa lagaga saaray iyo muxuu ahaa ciidan baa ka saaray askar baa ka saartay waxa weeye marka waxaan codsanaynaa adeer la isma dhici karo absame ismaba dhici karee waxanaga in banaanka nalooga maro haddii kale waynu isku badiliba haddii waxanaga la day waayo waan isku dilaynaa
waxa weeye annagu booskanagii baan rabnaa. caanadaa dabadoodaa la qabtaa wixii taga tiigsimaad ma leh. waxaa muhiim ah hawshaas in laga daba tago, la raadiyo, lagaga soo noqdo meel in lagaga soo noqdo, lagaga soo hadho sad iyo samirba. haddii la dhaco geela haddii la dhaco laga daba birmado ama waa la soo dhiciyaa ama waa la dhicin waayaayo waa la isaga tabarbadiyaayoo maxaan ku idhahdaa raggii isagoo madhan buu soo noqdaa. laakiin markii la soo quusto waa la qancaayo iyadoo qanac ahaa la yimaadaa. hawshaa waxaan leeyahay ilaa iyo meesha ugu dambaysa qanaca ugu dambeeya sad iyo samirba in la isu taago, aan maxaan ku idhaahdaa loo kala hadhin. abasguul ahaada geela waa isku raad, abasguulna waa abasguul, ninkii kala saaro alla ha saaro. intaasaan leeyahay abasguul baatiin gacmaha isqabsada. wakhtiga iyo sabinka maanta lagu jiro waad aragtaan. abasguul waa abasguul, geelana waa isku raad. intaa kadib waagii cabdulaahi yuusuf la soo doolanaayey shirkii allaylehay muxuu ahaayey kenya, anigu kursigayga waxaa dhacay maxamed afrey baa dhacay, asagoo yu-anta wakiilka ah, absamana wakiilka ah. hoolkii markuu inuu dhacaya aan ogaaday oon hadlay, askar buu igu dalbay waa iga saaray. kursigayga ninkaasaa dhacay, axmed xaashi baa ku fadhiistay, haddana gabar baa ku fadhida. axmed xaashi nin buu ahaa qabiilka dhan bahduu ka dhashay oo isku raacsan, dhacana la dhacay, xaqiraadda isku raacsan. waxaa la yaab leh, taasaa la yaab leh. haddaan hurdayna waa soo kacnay. abasguul meel lama wada joogta la yidhi warna kuma kala seegino. kan galbeed jooga iyo kan bari jooga iyo kan yurub iyo ameerika joogo dhacaas wuu ka warqabaa. haddii ilaah yidhaahdana waxaa naga xoog laguma haysan karee lama dhici doono.